السلام عليكم walaalayaal soo dhawaada channelkayga maanta videogan soo dhigay waxa weeyaan day in a life maalin nolosheeda so bas a typical day waxaan sameeyo sidaan isku nadaamiyo iyo wax kastaan tusi doona insha Allah videogadan cajibiso fadlan ayga iloobina like aad iyo aad baan i caawisaa subscribe kana ayga iloobina ku soo biira channelka daawasho wacan walaalayaal السلام عليكم walaalayaal soo dhawaada channelkayga magacayga waan Asteexo waxaan yahay holistic nutritionist maanta waxaan sidii kamaraaga qaado bar day in the life dadka u duub because badanka videoyaashan soo dhigo waa videoyaal and nitusayo cuntada fiican cuntada hilibka la isaga rido ama cuntada ciyaalka la siiyo so maanta waa kaas waxaan duubayaa typical day in a life so subaxdii markaan soo kaco iminku saacadu waxa weeyaan 10 subaxnimo so subaxdii badanka markaan soo kaco waxaan soo kacaa malaha 7 subaxnimo kulli saacad subax waan kicii dib baan seexani and then waan kicii oo ilmahayga wuxuu kacaa 7 subaxnimo ama 8 subaxnimo kol so markuu soo kaco waan soo dhaadhacnaa ani seer baan siiyaa quraacdan siiyaa aniguna kaafe yar baan sameysani kuushkan ka bedeli markaana de sariirtan dib ugu celini so iminku hurdaa markaan sariirta geeyo ba aniguna de videogeyga ani soo dhiga maalintii edit gareeyaa markaa de aniguna nafteeda ka shaqeeya so imika waa 10kii weli wuu hurdaa mar dhow buu soo kici doonaa so xaggan mar hore waan ii sheegay xaggan baan ku qoraa alaabtoo dhan maalintii aan waxeenayo so maanta waxaan nahay so imkaan post gareeyay cleaning baan waxaan intaan cleaningka waxaan quraac baan yar diyaarin markaas soo kacayaa waxaan waxaanayaa naladiisii ukuntiisii mashinkeer baan waxayaa so xagga maan waxaan ana naladeeda waxaysani markaana insha Allah guriga hagaajimo so toogu wareysa subaxdii markaan sida u soo kaco markaan horta maalinteeda planningka ku qoro waxaan ku bilaabaa vitaminskayga supplementkayga qaataa so xaggan soo arkaysiin waxaan tusayaa ironkayga horta iron waagan waxaan iska dareemay fatigue iyo daal so iron baan qaataa first thing in the morning because quraacda la fiican tahay inta la qaadato ama cunto marka cunisid coffee da cabaysidna saacad kadib ama saacad ka hor lacab xagan kalena waxaan qaadanayaa multivitaminka oo website-kayga ka heli kartiin waxa weeyaan supplement aan sameeyay meel kasta adduunyada joogtiinna waa ka dalban kartiin so website-kayga waa kan natural health insha Allah oostaan soo dhigayaa soo booqda so waa kaas markaan qaato supplementkayga multivitaminkaygan qaadan iyo waxaana qaadanayaa ironkaygii baalkaas soo arkaysiin baan biyo ka buuxiyey biyahaas baan cabis waxda oo dhan so sidaas baan horta subaxdeeda ku bilaabaa very easy horta biyo kol waa la iloobaa so it's very important ta biyo la cabo so maanta waxaan nahay isniintii badankana quraacdan sameeyaa for the week so waa tip yar aan siinayo ada doon sida hilibka iska ridin sidaas oo kale sameeya si waxaysta quraacdiina anu badanka wax kasta badanka waxaan ku quraacdaa ukun ama naalo so imika bas waxaan sameynayaa ilmahayga yara oo madhow soo kacaya inankayga sameynaya marka aniguna madhow baan samaysan doonaa meal prep oo de laba ukun omelette style iyo salami so waa kaas anigoo sameynaya arkaysiin baalkeer waa la weydiiyaa markaste Amazon storefrontkay ku jira dariigana ku waxaanayo waxba igama dhigo masha Allah
so Amazon storefront-ka waa keli kartin ama Walmart baa lagu hayaa. So saliidda xaggaas aan isticmaalayo waxa weeyaan saliid avocado oil taaba ku fiican cuntada markaa karinaysiin. Videoga haday dhinaca jabiso so far like-ayga loobana subscribe-ka fadlan waa kana Instagram-kayga badanka wax badan baan soo dhigaa quraac kaste maalin kaste qadadeeda waxaan sameynaya oo dhan baan soo dhigaa marka insha Allah xaggaana ila socda. So imika saa u arkaysiin waxaan sameynayaa malaha aduu 4 quraac toddobaadka dhexdiisa. Odagayga isagu maba cuno ukun so anigu ma nafteedu ma sameynaya ilmahayga isagana de maalin kasta waan sameeyaa. So waa ka xaggaas waan u sameeyay glaasarkan yar gelinaya insha Allah waxaan yar sugaa intuu yar qabo because waa kuleel. So yes waa kan quraacdeedii meal prep. So wakaas quraacda diyaar xaga maadana Instagram-ka kanii soo dhigay aniga arkaysin anigoo Instagram-kayga story-gayga dadku u sheegay waxaan ku quraacanayo. Dad badan baa jecel intay arkoon inspiration ama healthy dishes. So wakaas inankayga xagaa buu fadhiyaa isla quraacanaa isaga iska cuna naalada imika. So naalayo sweet potato-guna iska cunaa kolkol waqti badan buu qaataa but it's okay xagaa maan siiyaa xabad u dhiibaa. Dana waa kan website-keygii Natural Health soo booqda soo arka alaabtoo dhan ay ku jira aniga sameeyay waa all natural supplements weeyaan. So waa kaas hooyo kolleyba meel ma fadhin karto hadduu ilmahaygu ag joogo. So waan kacay biyaan siiyey naaladiisaan yar siinayaa. Website-kayga baan yar eegayaa email dadku ii soo diroon but yeah waa kan subaxdiinba. So waxaan tusayaa dadkaan u soo iibiyey waxaa soo dhow iminka birthday-giisii. So sanad buu noqonayaa maasha Allah ilaahay cilmigiisa ilaahay cumrigiisa u dheereeyo amiin. So waxaan tegay Carter's dadkaan u soo iibiyaan tusayaa. Dar badan uma soo iibiyo because COVID-19 baa lagu jiraa meel la tago ma jiro laakiin iminka sanad buu noqonayaa dharkiisii badanka way ka wala yaraadeen. wax kastana online baan ku iibiyaa caadiyan laakiin dharkiisii uu xafladda aan waxaanayo birthday-giisa waxaan doonay intaan arko. So aan ku safro fadlan fiiriyay. So ugu horeysa kani waa Carter's waxaan jecel yahay badanka sale bay markasta leeyihiin. Kani wuxuu ahaa malaha wax $4 gaaraya very cheap. Iyalku dharka hey mama iyalka dharka badankoodu way ka walaahi 2 bilood mu sidan markaana way ka yaraan. So hey mama hey eat. So kani baan soo iibiyey dharkiisii happy birthday-giisa. So baabkiisa so outfit-kiisa waxa weeyaan stripes mooyana I don't know if you can tell the theme. waxaan ka dhigayaa oday yaroo noo labisaadii ugu dambeysay dalkii labisaadii ugu dambeysay siita. So waa kaasaas stripes yar busaa u galayaa. waxa iga maqan bas intaan helo bow because waxaan doonay inta xaga yar bow yar uu soo iibiyo iyo axaad kolleyba duu tuuri doonaa bas inta yara taswiraha. So yeah waa kan dharkii uu kuma ciidayay waa dharkiisii the birthday-giisa xafladiisa. So asaan dharkeer baan u soo iibiyey. waxaan u soo iibiyey shorts because
onesies badan buu haystaa laakiin shorts ma le dhulkuna waa kuleel so shorts ana dookhayga de waa taqaantiin waxaan ka helaa waxa plain neutral colors ama the blue high beige white black waxaan dharka orange ama the bright green dadka badanka ciyaalka ugu soo iibiyo so kana waa outfits labadan isla socda suwaalkan shmishka yar labisaad yar oo qurux badan kabana waan soo iibiyey kabana oo kabii ugu horeysaan soo iibiyey intuuba dhashay kaba kala jiro oo Nike ah Jordans kuwaas waxaan soo iibiyey markii horta maba garanayn aduu ahaa inan ama gabadh waxaan soo iibiyey ahayd markaan odagayga u sheegay intaan pregnant ahaa so surprise ba ahayd laakiin kabahan waxa weeyaan kabii ugu horeysaan soo iibiyey so 12 months old waxay u eegyihiin hadee dadku maalinta birthdaygiisa u gashan doono insha allah imika bes waxay haray intaan helo cake because ma doono intaan siiyo cake de dukaanada lagu hayay sokorta badan ilmahayga sokor wax sokora weli afkiisa ma taabsan iyo wax gluten ah waxaan siiyaa ada gluten ha u taabsan because markii hore waxaan soo iibin jiray cereal oo oatmeal mooday umita ahayd laakiin markaan eegay labelka waxay ku dareen wheat marka gluten baa ku jiray but waan ka ilaaliyay wax sonkor ama wax gluten leh marka waxaan doonay intaan soo iibiyo cake yar oo de gluten free ah wuu jira xaggan Fidelis dukaan yar oo yarado oo gluten free hey mama hey gluten free cake wahay laakiin sokor caadi isticmaalaan so waxaan doonayaa imika cake meel yar oo lagu waxayn karo cake gluten free ah oona ku sameeyoon maxaa la dhahdaa oona ku sameeyoon maxaa la dhahdaa dates timir ama malab laakiin wax sokoraba uma fiicno ciyaalka you know so waa kaas imika cuntadii waan siiyey waa cunteynayaa imika keligiiba iska cunteeyaa badanka weli waa cunteynayaa madbaxu ma yar hagaajin iyo kaniifka xaggaas saalooga yar geejini and yeah I think that's it for the day inshallah brito ana waxaan ku talagalay intaan dharka meero oona dusha soo hagaajiyo because axad salaasadii video nima soo dhigo marka salaasadii waan iska nastaa marka ma guriga nadaafadiisa aad iyo aad uga shaqeeyaa toddobaadkan waxaan isku qasbayaa intaan ii duubo house tour kan baa igu adag because qof videogii qabtaan doonayaa odagayga always busy marka inta madaha walaashaya ama cousinteeda ka yaraado kaale oo dayno videogii hay intaan duubano guriga deegaas imika waxaa shaah yar baan sameynay ina keerna waan yar ciyaarana insha allah so bes imika gurigu ma yar hagaajinayaa gurigu waa iska nadiif laakiin alaab badan baa meel kasta taala xagana yar tuso waa iska nadiif but miisasku ma masixi xaggaas oostiisana waa yar masaxay imika meel kastuu maraa inankaygu so meel kasta intaan masaxaa yeah bes intaan may haray cuntadiisina sugani tusi cuntadiisina xaggan baan u karinayaa sweet potato buu aad iyo aad u jecel sweet potato waan fixiyey xagga digaag baa ku jira maanta waxaan ku beerinay yaroo tufaaxa aan u fixinayo iyo kale baan u malaya so intaan baan isku ridqay cashadiisii noqon but dhulkan oo dhan muudsan iyo kala hagaajin waayo britole waxaan talagalay intaan soomo insha allah ilaahay hadduu qoro so imika waxaa ligu leeyahay adu malaha laba rabadaan baan soomin so waa intaan soo qabtaa so britole baan soomayaa waxaan isku tijaabin salaasadii iyo khamiistii intaan soomo salaasadii khamiistii badanka ma shaqeeyo video ma soo dhigo so salaasadii iyo khamiistii baan soomi weekendkiina sabtidiina waan isku tijaabin insha allah waa arki doonaa because imika naas maba siiyo malaa habeenkii baan siiyaa ama maalintii kol naasaan kasoo joojinaya kasoo yaraynaya because caano kaluuba iska cabaa shaqadiina mar dhow baan ku noqon doonaa so
yeah imika bas gurigan baa muudsani oo hagaajini wakaas gurigii u dhalaalaya maasha allah waxaan shiday xagan oil diffuser so just to relax meel kasta masaxa baan leeyahay video baan gooni u sameeyay because adi kale videogan aad iyo aad bay ku dheeraan lahayd so video baan gooni aan waxay motivational cleaning meel kasta masaxa ilmaa xagan oosta because inankayga meel kastu maraa meel marin ma jirto so basketka xagan yaal horta wallahi aad iyo aad buu ii caawiyaa because wax toyskiisa oo dhan baan ku xirayaa alaabtiisa oo dhan it's very nice wakaas iminka bas dharkan baan soo dhaadhiciyo beritoole insha allah aan meeri doono insha allah but maskatina waa shiday waxaan leeyahay guri gaariya wayaan bas iminka waxay harowminta cuntadiisa xagan u diyaariyo anakuna waxaan soo iibsanay Osmos aanay furabar Osmos aad baan u jecel yahay kani ugu horeeya aniga adagayga mooyaan soo qaaday kani waa waxaan salaad caadi ah kana waa salaadkeygii baan malayaa eega siduu macaan yahay oh la la I love this I love it so much kaanuka cuno waa salaad eegaygan isagu waxa weeyaan saxidano caadi oo hilib bala socda bariis daarkasiin mooyaan that is very nice waana xalaal waa kani salaadkeygii so wakaas xasan bay ku dhantahay vloggeegu xagan waxaan tusayaa maskati ama cuud actually cuud ay soo dirtay gabadh Faransiiska joogtaba u malaya oo iyadu sameyso anu qof kastoo Soomaaliya oo business leh for free baan waxaya sponsorship ama the publicity so inshallah soo booqda Instagram-kayga oostani soo dhigi and all the you know dadkiina waa intaan iscaawinaa so waa kaas imika maskatidii baan shiday xagga ma vlog kusoo dhammaynayaa waxaan rajaynayaa inay cajibiso like subscribe waa inoo jimcaha baan u malayaa maca salaama